sida aad la socotaan waxa weeye Soomaaliya markay ragaaday oo cid u istaagtay weyday oo kooxba meel ka baxday oo maamulba meel istaagay maamulka galmudug wuxuu isku hawlay iyo shacbigiisuba inay arinta Soomaaliya u istaagaan oo gobonimada iyo isku keenida iyo difaaca calanka aynu dhaxda u xidhano waxaad ogtihiin dhuusamareeb 1 dhuusamareeb 2 dhuusamareeb 3 dhuusamareeb 4 shacbiga reer galmudug oo dawladdu hogaaminayso oo madaxweyne Axmed Cabdi Kaari oo hoggaanka u hayo ayaynu isku tashiya ayaanu u casulnay maamul goboleedyadii xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo dawladdii federaalka ahayd meesha xamaasadu jirtay waad ogtihiin siday ahaydna waad ogtihiin waxaanu xarayna gogolshayadii iyo geedahaanu waabnay ayadoo aan beel caalam wax weydiisan ayadoo cid kale kaalmeyn waxaan qalayna geelayaga iyo idahayaga iyo guryahayaga aan ku ibsnay waa lagu liimaanay Soomaalidu waa isugu timid wax badan oo maanta tiirarka lagu taagan yahay oo qarannimada ku taagan tahay dhuusamareeb baa lagu gaar ayadoo sidaas tahay ayaa waxa dhamaan waayay fargelinta shisheeyaha ee ay dadka qaarkiis ay hadii ilaahay ka dhaxlayso xamar baa la isugu tagay hadii xamar la isugu tagay waad ogtihiinoo maamulada qaarkood waxay yiraahdeen haddaan dad shisheeyahay aysan wakiil naga noqon hawlaha iyagu ma soconayaan lagu galmudug ahaan dadka sida xun wax loogu sheego dadka ugu qaadan og dadkayga shacbiga ah dibadaha iyo meelaha jira laga wax maqashaan dawladdii bay la safayeen dawladdii bay xaq haddaan dawladda la safan ma shisheeyaa la safan laha haddii wax la raadinayo waxa weeye in dalku badbaado cid kasta oo saami ku leh dalka oo taladeeda wax ku leh in la soo dhaweeyo oo loo dhaga nuglaado oo loo gogol seexdo oo haddii ilaahay ku rooyahay beerka lagu cararo siyaasadda galmudug weeye Axmed Cabdi Kaari oo xamar u joogo cid kasta oo Soomaaliya oo talada Soomaaliya looga maarmina waxa weeye shuruud la'aan ayuu madaxweynuhu habeen iyo maalin iyo subax u soo jeedaa arrimahaas hoggaan qabashada ah ee nuhdaha u lahayn jiray markii Soomaaliya ay ragaado inaynu gobonimada aanu hogaamino kor u qaadno ayaa waxay ay keeneen in haddii ilaahay ku nasiib darro inay maamulada qaarkood ay ku biciidsadaan oo nagu aflagaadiyaan marka hore waxaad maqlayseen shalay toole iyo maalmaha baraha bulshada qabsaday wasiir kamid ah wasiirada Puntland madaxweynaha Puntland maalin dhaxaas asagoo waad ogeydeen inta waxay si aan kala har lahayn u aflagaadeeyeen ayadoo anaga ay noogu dambeysay ama ay noo joogto inaan walaalanahay in wax naga dhaxeeyaan in nabad noo dhaxayso inaanu shaqo wada wadnay aflagaada aan meel loogu soo gaban xasha waa ka raali gelinaya dadka reer Puntland arintaas lukuma leh xabal laba qabaan ayaga dhibaatada anagu hadda la haysta ay madaxdu la gaarsiinayso mid ka dara ay gaarsiiyeen wasiirka cadaaladda 8 xildhibaan oo fikirkooda ku weydiiyay takadib boosaas aawe sharcigiisa lagu ceyriyay wasiir hadii ilaahay ku rooyahay lacagtii Soomaaliga iyo dadka maciishadoodii taagneed dad u dilay wasiir iyo maamul hadii la amisom ayaa talada ka gooda u taagan inay annaga oo nabad doon ah oo qarannimada u taagan oo Soomaalnimada u taagan ay nagu tilmaamaan maamul ay jirin ama daciifa waxa la yiraahdaa ciddii siyaasadda ka harta ama meel hoose ka joogta dadka reer Puntland hooyadii waxay ahaan jireen federaalka maantay maamulkii ugu liitay oo ugu aflagaada badnaa oo ugu waxtarka yaraa ayaa hoggaanka u qabtay waana nasiib darro maantana hooyo iska daayay ilmaheedii ma aha anagu haddii siyaasadayadu ay noqotay maanta ama federaal ha noqoto ama international ha noqoto ama maamul goboleed ha noqoto ama Soomaalida ha noqoto siyaasadda Axmed Cabdi Kaari oo madaxweynaha galmudug kursi uu safadin miiska Soomaaliya looga hadlo awoodda markan ka dhiman galmudug magaca ka dhiman siyaasadda ka dhiman waxa weeye waxaan is leeyahay haddii ciyaaraha European League markaas fiirsanaysaan ayaa kooxo waaweyn markay Serie B ku laabtaan ay qaadan waayaan dhowr sano kuwa Serie A xigsadada jiraana
kuwii serbiyada ay tartami jireen hadday laabtaan aaday ula coloobaan oo u xagxagtaan puntland iyo dadkeedu sharaf bay naga mudan yihiin waa dad taariikhi leh waa dad dawlad wanaagsan leh laakiin maamulka hadda gacanta ku haya wuxuu u celiyey serbinimadana waxay keentay maalin walba inay caytabaan oo dad aan waxba kala dhexeen la caytabaan arrinkaas marka dadka reer galmudug waxaan leeyahay yaan aflagaada puntland la gaarsiinin yaan dad reer galmudug puntland waa dad sharaf leh waa dadkii gobonnimada iyo soomaalinimada asalka u ahaa waa dad aanu darisnahay waa dad soomaalinimada macno la leedahay nasiib darrada hoggaan xumo ee hadda haysatana waana uga tacsiinana ilaahay ka saarana waa leenahay arrimaha kale ee galmudug ka jiraana waxaad ogtihiin socdaalaanu inta ku nimid madaxweyne ku-xigeenka inta yimid cadaado waxaan ka furray shirka golaha wasiirada ayaa ku qabannay hadda madaxweyne ku-xigeenka wuxuu jiraa caabudaaq hawlihii canshuuraha iyo haddii isku dubaridka deegaanka ayaynu meesha tan u joognaa waxaanu ilaa hobyo iyo ka sii bari ayaa waftiyada qaar tageen waxaa loo kuurgalayay abaaraha iyo sida xaaladdu tahay ayadoo xabaalo adag baa jira anoo kaga faa'iidaysana mikrofoonka waxaan leeyahay inta ilaahay wax siiyey iyo kuwa dadka kaalmeeya abaaro ba'an baa galmudug ka jira gees walba oo u baahan in loo soo gurmado cudurka covid-19 xoog buu nagu hayaa waana u tabar la'nahay waana u hanuunin la'nahay oo dadkayagu aad uguma hanuunsana sidaas laajiligeed ayadana ciddi naga taakulayso Soomaaliya siyaasadeeda taaganna galmudug haddaan nahay dal iyo dibadba waa inaan ka raacno dhanka ah in Soomaaliya midowdo dawlad Soomaaliyeed oo xagsan oo la isku raacsan ilaato doorashadana ay noqoto mid xalaal ah oo la isku raaco mar walbana waa inaan u hiilisaan hadba cidda dadka isku wada ee dalaha ka shaqeynaysa wabillahi tawfiiq